maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa deeq lacageed oo xaqul ciid ah gaarsiiyay 200 oo qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada Muqdisho. deeqdan oo ay soo dhiibtay hay'adda Hormuud Foundation ayaa waxay ugu tala gashay dadka danyarta ah ee isugu jira barakacayaasha iyo sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba si ay ugu ciidaan maalinta Ciidul Fidriga oo ay maalmo kooban naga xigto. munaasabad kooban oo deeqdan lacageed lagu dhiibayay ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan, wuxuuna sheegay in aanay ahayn deeqdan lacageed tii ugu horreysay oo ay dadka noocan oo kale ah oo ay gaarsiiso hay'adda Hormuud Foundation. barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijyo taxane ah oo soo socday usbuucyadii la soo dhaafay, mana ahan markii ugu horreysay oo in ka mid ah dadka nugul ama u baahan in la taageero Soomaaliyeed aan ka geysano. dabcan jimcadii hadda daraade jimcadii ka horreysay waxaan joognay halkan ayadoo sidoo kale munaasabad tan oo lamid ah kaalmo lagu gaarsiinayay in ka mid ah bulshada oo u badan mataqaanaa dad mataqaanaa danyar ah oo haween ah. sida ay wasaaraddu noo sheegtay dadkan oo laga soo xulay qaybaha kala duwan ee gobolka Banaadir haddii ay noqon lahaayeen barakacayaasha iyo dadka ku dhaqan magaalada intaba, waxaan u rajaynayaa Allah subxaanahu wa tacaala inuu mataqaanaa idin barakeeyo sadaqada lacagtan kaalmada ah ee shirkadda Hormuud ugu tala gashay inay ku caawiso dadka Soomaaliyeed xilliga adag ee lagu jiro. dadkan culays ayaa ka jira, dhibaato badan caalamka saameeyay ka jirta, xanuun baa ka jira. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaar Maxamuud Jaamac Jawaar Barqab oo u mahadcelisay hay'adda Hormuud Foundation ayaa waxa ay sheegtay in la gaaray xilligii Soomaali ay isku tashan lahaayeen oo ay iskaalmaysan lahayd. mar kale ayadoo Hormuud Foundation 10 bisha Ramadaan ayadoo u dambeysay ay tahay maalmihii khayrka badnaa waliba lagu jiro, sharaf ay noo tahay ayadoo wasaaraddeena haweenka gudoomiyaha Hormuud Foundation shirkadda Hormuud ama Hormuud Telecom hadday noqoto kuwa wax dhisaya Bruj isku soo wada duub. Hormuud waa samafalayaal ummadda Soomaaliyeed u adeega. waxaan aaminsanahay waa dadka u shaqeeya wixii dadka ay ka qaadaan dib ugu soo celiya. marka dadkay u shaqeeyaan kama shaqaystaan ee way noo shaqeeyaan. jazaakumullahu khayran leeyahay. xildhibaan Qatra nagu soo biirtay, waad u jeedaan waxay ku jiraan guryaha dadka noocaan oo kale ah. Saabiriin waa gabar yar, hooyo dhalin yaraa dhashay, meelan la geyn ma leh. waad dareemi kartaan habeen iyo maalin waa inay taagnaato hooyadaas. haddana markay duruufaysan tahay qofku usan garab haysanin isagaa isla hadlaya, depression ay noqonayaan. inta hooyooyin badanaa fadhiya oo caruuraha ay wadaan iyo ayaga xataa laftirkooda qalbiga wax weyn oo qalbigaaga taabanayo waa ku tajgaraynaysaa. gudoomiye Cabdullaahi waxaan rabaa ilaahay dartiisa wax u bixinaysaan wixii ummadda ka yimaadeen oo dadka Soomaaliyeed hay'ad nooma keenin oo gargaar noo fidinayso. caalamka waqtiga la baryayay waa laga tegey. waqtiga annaga wax isgacan qabanaynaa la joogaa. waana shirkadda kaliya ee si Soomaalinimo ah ku shaqeeyaan. dad Soomaaliyeed iska leh wixii ka soo baxo oo ay ka faa'iidaan dadkay dib ugu soo celiyaan. munaasabadan oo lagu kaalmeynayay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa kasoo wasaaradda haweenka iyo maamulka gobolka Banaadir, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir.